socdaalkan taliyaha ciidanka xoogga dalka uu ku soo gaaray magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud ayuu ku leeyahay sidii uu uga shaqayn lahaa in ciidamadu ay gaaraan gulo waaweyn deegaanada hormarna ay ka qabsadaan kooxda qawaariigta al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Ibrahim Sheekh Muxidiin oo weyliyo taliyaha ciidanka lugta ayaa soo gaaray magaalada Galcad isagoo kormeeray difaacyada ciidamada ee magaalada Galcad sidoo kale waxa uu tagay furmo hore ciidanka waxa uu sheegay taliyaha in ciidamadu maalmihii u dambeeyay ay gaareen gulo waaweyn iyadoona ciidamadu ay kaabiga ku hayaan deegaanada budbud caws weyne iyo sidoo kaleeto deegaano kaleeto oo muhiim ah waxa uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka oo waraysi gaarsiiyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed in ciidamadu ay la wareegeen deegaanka Qurxa ee gobolka Galgaduud sidoo kaleetana ay dhinaca Gurceel ciidamada ka soo baxay ay tageen deegaanada Warxoolo Zawyaalo iyo sidoo kaleeto deegaano kale oo muhiim ah aga maxas wabxuma shalilaado ayaa mataqaanaa saakay ciidanku soo gaaray Gurceelna wuxuu soo gaaray meesha la yiraahdo Warxoolo ilaa uu ku sii socdo hadda Ceelbuur uu ku sii socdo marka wiilaha dhinacaas halkaas laga gaaray aaga la yiraahdo Cali Axmed isagana budbud iyo Geriyaale ayaa laga maray ayadana marka guud ahaan markaan soo koobo ciidamadu waxay kaabiga ku hayaan jihooyinka dagaalka looga wado marka la yiraahdo labadii magaalo ugu muhiimsanayd ayaan ku haynaa afka ku haynaa insha Allah waan galeynaa waqti aan dheerayna wala qaban doonaa socdaalkan uu taliyaha ugu yimid magaalada Galcad ayaa waxa uu ka dambeeyaa socdaallo ay maalmihii u dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda sidoo kale saraakiisha ugu sareeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku tagayeen furimaha hore oo ugu furgelayeen sidii loo soo gabagabeeyay wajiga koowaad dagaalka Usmaan Maxamed Aadan warbaahinta qaranka furintooda